halkana Wariye Xoriyo codka shacbiga ogaadinayo aad ka dhageystaan mawjada gaaban ee 19 mitirban saacaduna haatan waxay ku taagan tahay 5 iyo barkii galabnimo oo gow waa galabnimo isniina bisha Juun waa 14 sidoo kale waxaad naga dhageysan kartaan baraha aan internetka ku leenahay iyo YouTube-ka Radio Xoriyo barnaamijyada galabnimo waxyaabahan uu ku soo qaadanayna waxaa kamid ah war murtiyeeda ay jabada wadaniga xoreynta ogaadinaya ka soo saartay xasuuq wadareedka ay ciidamada Wayaanuhu ka geysteen malqaqa iyo deegaankeeda waxaan u halgameyna waan rumaysanahay tabarin wax ka soo aha qadiyada inaan Itoobiya ka xoreyno waan rumaysanahay ogaadin inaan ka xoreyno ayna waan rumaysanahay waana ku mitidayna aad iyo aad baan ugu mitidayna in alla intii niyadsan oo dhanna waan u kaashanayna oo arrintaas qodobad taariikhi ah oo gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadinaya ka soo jeediyay shir ay isugu yimaadeen jaaliyadaha ogaadinaya ee meel badan oo Yurub kamid ah sidoo kalena waxaad maqli doontaan war murtiyeedu soo saaray macadka la yiraahdo Institute of Horn of African Studies and Affairs oo ku shaaciyay in kulan weynaha uu sanadkani qabanayo diiradda lagu saarayo qadiyada ogaadinaya iyo dabcan sugan halgameedii balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan aayadihii quraanka kariimka ah ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الله إنه وانفعين تاسي وحينه إذل آياته قرآن كريم كاها واتحي صارها إذا عدنا قبل منا وجامع ديري أنا عبد الرحمن شيخ فرحنا هل كان يعني كلا سعوديين balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray waxaan la socodsiinayaa Wariye Jaamac Dheere gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadinaya Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo oo booqasho ku maraya qaar ka mid ah wadamada Yurub ayaa gaadhay magaalada Oslo ee dalkaasi Norway gudoomiyaha jawxo ayaa habeennimadii axadda ka qayb galay shir ballaaran oo ay ka soo wada qayb galeen jaaliyadaha ogaadinaya jaaliyada Soomaaliya iyo marti sharaf kale gudoomiyaha ayaa shirkaasi ka jeediyay khudbad dhaxal gala oo meelo badan taabanaysay waxaana ka mid ahaa khudbadii gudoomiyaha gudaha waxaa ka halgama ciidamadaas runtii waqtigan hadda waa ciidamo aad iyo aad u wanaagsan fiican hal gobol mooye oo gobolka Liibaan la yidhaahdo mooye deeda kale si joogta ayay ciidamada jabhadu uga hawlgalaan goboladaas ay jabhadu ka hawlgasho ciidamadeed si aad iyo aad geesinimo leh oo firfircoon ayay uga hawlgalaan tayo tababar iyo qalabba jabhadu way kortaa oo si hawli ah ayay ku socotaa meelaha ama gobolada badankoodna gacan sarreynta iyadaa leh cadow waxaad moodaa waqtiyada dambe inuu ku ururayo magaalooyinka markii culayska jabhada uu ku batay sidaas daraaddeed waqtigan hadda ah inaynan ciidamada cadow ayna isu socon karayn in ay konvoy culus abaabulaan oo helikobtarkuna la socdo mooye jabhada wadaniga xoreynta ogaadinaya ayaa baaq kulul ka soo saartay xasuuq ay si bahalnimo ah uga fuliyeen ciidanka Wayaanuhu deegaano kala duwan oo ka tirsan deegaanka Galaalshe ciidanka xukuumadda Wayaanaha ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay ka waday deegaankaasi gaar ahaan deegaamada Malqaqa Faafan Gorayga iyo meelo kaleba xasuuq isirsifayn ah oo si aan kala sooc lahayn ay ugu xasuuqeen shacabkii ku dhaqnaa deegaamadaasi baaqan ka soo baxay jabhada wadaniga xoreynta ogaadinaya ayaa waxa ugu baaqaya hay'adaha qaramada midoobay beesha caalamka iyo dawladaha adduunkuba
inay indho dheer u yeeshaan xadgudubyada iyo xasuuqa arxandarrada ah ay ciidamada rigliga ah ee Itoobiya iyo kooxaha maleeshiyaadka u ahay ka wadaan waddanka Ogaadeniya waxaa kale jawxa ugu baaqaysaa hay'adaha gargaarka iyo dawladaha adduunku inay gurmad aadaminimo oo degdeg ah la soo gaadhaan kumanaan dada oo ku dhibaataysan dhulka miyiga ah kadib markay naftooda kala baxsadeen gumaadka ciidamada gumaysiga Itoobiya oo aan dad iyo dunyo midna u abayeelaynin ciidamada taliska wayaanaha ayaa wada xadgudub baahsan oo ay kula kacayaan shacab weynaha Ogaadeniya waxayna gabadfalladii ugu dambeeyay ee na soo gaadhay ka geysteen labadii bisha 6 2010 magaalooyinka Maraacato iyo Dalaad iyaga oo ku kala xidhay tira dad ah oo ay magacyadooda naga soo gaadheen شكري حسين مغن عنب متان محمد مختل آقب حسن علي دير محمد مرسل فارح محمد إلكا عسى حسين حسن ديق أنبيو قديب رقية يوسف فاطمة فارح رحمة مصطفى أبح ديق أحمد شون عبد مختار حسن هيري محمد بيحي فارح محمد عبدي كايد أذر أحمد عبد يرى علي مهدي حسن محمد معلن إفراح شيخ يوسف رمان شيخ يوسف محمد عرتي محمد أحمد نور عمر ماهد أحمد دعر كيسي أبيب كمس فارح دابي بدل دوفلال معلن أحمد إيو عبد الرزاق إيراني محمد sidoo kale waxa shantii bisha 6 2010 lagu xirxiray magaalada Qabri Dahare Qamaan Suldaan Saakin Maxamed Aaqib Amaal Cabdiyare Fathi Badal Faarax iyo Abdinaasir oo aan magaciisa buuxa haynin afartii bisha 6 2010 laascaano oo gobolka Qorraxay ka tirsan waxa lagu xirxiray Farxiya Sacle Awdool Kaafi Cali Yare Farxaan Cali Saafi iyo Xalaawi Dhaga Dheere halka aad warkaasi kala socotaani waa raadiyo Xoriyo codka shacbiga Ogaadeniya todobaadyadii u dambeeyay waxa waddanka Ogaadeniya galaabaxayay qaar ka mid ah saraakiil isku sheeg ka tirsan jabhadda wayaanaha TPLF ee xooga ku haysata talada gumaysatada madow ee Abasiiniya kooxahan oo kala socday ayaa haddana ka midaysnaa dhibaato u geysashada shacabka dulman ee Ogaadeniya waxaana ka mid ahaa xubnaha wayaanaha ee yimid waddanka Ogaadeniya Samora Yohannes oo ku magacaaban abaandulaha ciidanka wayaanaha kaasi oo u yimid inuu ugu hambaliyo qowlaysatada Ogaadeniya ka joogta xasuuqi axmaqnimada ahaa ee ay ka geysteen deegaanada Malqaqa iyo hareeraheeda sidoo kale waxa isna ka mid ahaa xubnaha yimid ninka u qaabilsan dhinaca warfaafinta xukuumadda wayaanaha oo lagu magacaabo Bracket Simon kaasi oo ku caanbaxay ka been sheegidda xaqaa'iqa dhabta ah ee ka jira Ogaadeniya wariyaha raadiyo Xoriyo uga soo warrama magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in intii ay joogeen dambiilayaashan oo dhib badan ka soo gaadhay dadka shacabka gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Jigjiga gudoomiyaha xisbiga EUB Haylo Shawel ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay jagadii gudoomiye ee xisbigiisa una isaga baxay siyaasadda dalka Itoobiya isaga oo ku eedeeyay jabhadda talada dalkaasi haysa inay kula kaceen falal aad u foolxun ninkani ayaa ahaa gudoomiyaha xulafadii la magac baxday CUD oo tartan xoogan la galay jabhadda EPRDF sanadii 2005 kuwaasi oo si cadaan ah afka ciida loogu geliyay Haylo Shawel oo ah injineer aad looga yaqaan waddankaasi Itoobiya ayaa si xun ugu fashilmay kadib markuu heshiis la galay dhowaan kaligii taliya Malla Zanaawi taasoo keentay inuu lumiyo gabi ahaanba sumcaddii iyo taageeradii uu ku lahaa bulshada dhexdeeda dhinaca kale isbahaysiga haatan ugu itaalka roon kooxaha dalkaasi ee Madrek ayaa mar kale ku celiyay dalabkoodii ahaa inaanay ku qanacsanayn sida ay u dhacday doorasho ku sheegtii u dhigi cabsanaawi hadhca tunka u ritay isaga oo la wada arkayo codadkii dadka waxayna mar kale ku celiyeen inay tagi doonaan maxkamada ku sheega wayaanaha uga dhisan Addis Ababa iyadoo ay dhici karto haddii kooxahan mucaaradka ah looba ogolaado in kiisas ay furtaan ay taasi horseedi doonto qalalaase siyaasadeed oo guud ahaanba hadheeya mustaqbalka waddankaasi ee aan cagaha adag ku taagnayn mahadsanid Jaamac Dheere intaasna waxa inoogu idil warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Xoriyo codka shacbiga Ogaadeniya markii uu gumaysigu shacabkii gumaadee kantaala holcaayo diyarada garaaca guryahooda gubayeen markii uu gumaysigu shacabkii gumaadee kantaala holcaayo diyarada garaaca guryahooda gubayeen
qalingadoodiyo geesi aan cabsooniyo wiilal gaardiyaya goobtii ka